daawada ku soo dhawow muuqaaladeeni taxanaha mid ka mid ah wuxuuna ku anfacayaa muuqaalkani haddii aad tahay shaqadoon ama shaqo raadis gaar ahaan macallin luuqadeed. daawada waxaa laga yaabaa inaad tahay aqoon-yahan ama aqoon-yahanad kaas oo waqti badan iyo lacag badan ay uga baxday waxbarashadiisii haddana aanan guran weli miraheedii. way dhici kartaa inaad ku sugan tahay wadamada aadan shaqo ku heli karin shahaadadaada ee aad shaqo ku heli karto reerka aad tahay ama qabiilka aad ka soo jeedo. waxaa kaloo dhici karta inaad ku fikirtay ama ay hadda maskaxdaada ku jirto inaad furato iskuul kuu gaar ah laakiin aadan hayn qarashkii aad ku bilaabi lahayd, yacni qarashkii aad iskuulka ku furan lahayd. yaanan hadalka kugu badin daawade, waxaan kuu sheegayaa inay jirto fursad aad uga faa'iidaysan karto aqoontaada luuqadeed waxna ku bari karto boqolaal arday oo kala jooga daafaha caalamka. waxaadna casharada ku bixin doontaa si online ah. micno ma samaynayso meeshaad caalamka ka joogto, wax qarash ahna kaaga bixi maayaan inaad furato private school kuu gaar ah. waxaa lagaa rabo oo keliya waa inaad haysato laptop iyo internet. qarnigan aynu joogno teknolojiyadda ayaa suurtagelisay waxyaabo badan oo horey u adkaan jiray, waxaana jira platformyo ama mareego badan oo aad iska diiwaangelin karto ugana shaqaysan karto aqoontaada adigoo kula kulmaya arday kuu baahan. muuqaalkana waxaan kugula wadaagi doonaa 2 ka mid ah 10ka ugu wanaagsan platformyadaas ama meelaha aad iska diiwaangelin karto. mareegta koobaad ee aan kugula talinayo haddii aad barnaamijkan xiiseynayso waxaa la yiraahdaa italki. waa mareeg aad ka noqon karto macallin ayna kugu sugayaan kumanaan arday ah oo daafaha caalamka kala jooga hamuuna u qaba aqoontaada inay ka faa'iidaystaan diyaar u ah. mareegta labaad ee aan kugula talinayo waxaa la yiraahdaa VIPK. waa platform kamida kuwa ugu wanaagsan markay noqoto dhanka barista online. haddaad u aragto saaxiib muuqaalkani inuu waxtar u leeyahay bulshada afka Soomaaliga ku hadasha si faafi, wixii su'aal ah oo aad qabtana qaybta commentiga noogu reeb. aadna waan kaaga mahadcelinaynaa daawashadaada.